maanta oo kale 100 sano ka hor taariikhdu kolkay ku beegneed 29ka bishii 10aad 1923 waxaa si toos ah loogu dhawaaqay dawladda cusub ee Jamhuuriyadda Turkiga iyadoona la shaaciyay in gabi ahaanba la xiray malafkii dawladdii weyneed ee Cusmaaniyiinta. waxaa soo dhamaaday dawlad lagu tilmaamay inay tahay dawladdii ugu cimriga dheereed abid ee Islaami ah dunidana ka talinaysa muddo ka badan 600 oo sano. waana dawladda kaliya ee ku guuleysatay inay furato magaalada Qusdandiiniya ee haatan loo yaqaano Istanbul. waa dawlad ka soo farcantay qabiil degan 100 teendho oo kaliya deedna gaarsiisay awoodeeda saddexda qaaradood ee ugu saameynta badan adduunka ee kala ah qaaradda Yurub, qaaradda Aasiya iyo weliba qaaradda Afrika. waxay sidoo kale soo maamushay saddexda bad ee ugu saameynta badan ganacsiyada caalamka ee kala ah badda cas, badda madow iyo weliba badda dhexe. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aan uga hadli doono boqortooyada ka bilowday curashadeeda dhulbadkiisu uu la eg yahay 4800 oo kiiloomitir isku wareeg gaarsiisana awoodeeda dhul lagu qiyaasay 1,800,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. kadib kolkay Magooliyiintu dawlad lagu halaagsamay ay ku qaadeen gabi ahaanba afarta dhinac ee qaaradda Aasiya, qabiiladii deganaa Aasiyada dhexe waxay magagali u doonteen dawladdii Islaamigeed ee Salaajiqada oo ka arriminaysa mandiqada Anadol, dagaal kululna kaga guuleysatay oo kaga la wareegtay dhulal fara badan dawladdii Kirishtaanka ahayd ee Bisandiyiinta. qabiiladii ka soo qaxay Aasiyada dhexe waxaa ka mid ahaa reer Kaayi oo ka mid ah 24 qabiil ay ka kooban yihiin Turkidu, waxaana kolkaasi madax u ahaa qabiilkani geesi hal adag laguna magacaabi jiray Suleymaan Shaah. se waxa uu geeriyooday Suleymaan Shaah isagoo ka tilaabaya webiga Furaad ee mara dalka Ciraaq. deedna xilkiisii waxaa qabtay wiilkiisa Ertugrul oo buuxiyay booskii aabihii, isagoona weliba noqday garabka midig iyo weliba lugaha ay ku taagan tahay dawladdii Salaajiqada. waxa uuna kasbaday qalbiga boqorkii ay isku xilliga ahaayeen ee Calaa'udiinkii koobaad. waxa uuna Calaa'udiin u magacaabay Ertugrul inuu yahay amiirka dhammaan qabaa'ilada degan xuduudda dawladda Bisanda. Ertugrul waxa uu noqday nin shaqadii loo igmaday ka soo baxay, welibana diyaariyay geedihii dhidibada loogu taagi lahaa boqortooyo ka talin doonta caalamka muddo 6 qarni ah. isaga oo aan geeriyoonna ayuu xilkii u dhiibay saddexdiisii wiil ee uu dhalay midkii ugu yaraa ee ahaa Cusmaan ibnu Ertugrul ibnu Suleymaan Shaah. Ertugrul waxaa lagu qiyaasaa inuu geeriyooday 1281 miilaadiga. kolkii uu geeriyoonayna wuxuu ka arriminayay dhul badkiisu yahay 4800 oo kiiloomitir isku wareeg ah. wuxuuna wiilkiisa Cismaan sii ambaqaaday firashooyinkii ilaa uu qabsaday dhul lagu qiyaasay 16,000 oo kiiloomitir isku wareeg ah. dabayaaqadii sanadii 1299 Cusmaan waxa uu aasaasay dawladdii isaga loogu magac daray ee Cusmaaniyiinta, waxaana ka dambeeyay wiilkiisa Orhan ama Orqaan oo waxay noqotay boqortooyo la iska dhaxlo sidii dawladihii hore ee Cabbaasiyiinta iyo weliba Umayyiyiinta. haddaba dawladdan yar ee ka soo bilaamatay qabiilkaasi reer guraaga ahaa ayaaba noqotay geed ay harsadaan gabi ahaanba dadyowga caalamka, iyadoona xukumi jirta dhul baaxad weyn laguna qiyaasay 1,800,000 oo kiiloomitir isku wareeg ah. kolka la fiiriyo khariidada caalamka, waqooyiga adduunka waxa ay gaadhay magaalada Vienna ee caasimadda waddanka Austria, barina waxa ay gaartay xadka Shiinaha, koonfurna dalka Soomaaliya, galbeedna waddanka Morocco ilaa Mauritania. taariikhyahanadu kolka ay ka hadlayaan taariikhda boqortooyadii Cusmaaniyiinta waxay u kala qaadaan 3 marxaladood. marxaladda koowaad waa marxaladdii ay dawladdu bilaabaysay madax kor u qaadid, ballaarasho iyo weliba furashada dhulka loo yaqaan Balqaan ee dhaca qaaradda Yurub. marxaladdani waa marxaladdii ay dawladdu ka tagtay imaarad cagtana ay saartay waddadii boqortooyanimada. waa marxaladdii ay furatay magaalada Istanbul, gaartayna bariga Yurub, iyadoona marxaladdani ay boqortooyada caasimad ka dhigatay magaalooyin kala duwan sida magaalada Bursa, magaalada Edirne ilaa magaalada Qusdandiiniya oo haatan loo yaqaano Istanbul. waxay noqotay dawlad madax bannaan kana doorbidan dawladihii goortaa jiray. taariikhyahanadu waxay marxaladdani ka bilaabaan xilligii uu Cusmaan aasaasay dawladda ilaa uu ka geeriyooday boqorkii 8aad ahaana wiilkii uu dhalay Maxamed Al-Faatix lana oran jiray Bayasiidkii labaad 1512 miilaadiga. marxaladda labaad waa marxaladdii ay dawladdu awood iyo horumar ku tilaabsatay oo ay siyaadisay caleemaheeda si ay u harsadaan muslimiinta ku nool dunida dacaladeeda,
iyadoona awoodeedii ugu badneed u jeedisay tookadani bariga islaamka, waxayna noqotay dowlad ka talisay inta ugu badan wadamada islaamka, ilaalisana dhulalka barakeysan ee Makka, Madiina iyo weliba Baytulmaqdes, iyadoona ka hor imaatay fikirka Shiiciga ah, xoojisana madhabka Sunniga ah. waxayna gaartay dalka Masar, Xijaaz, Yemen, Sham ilaa Morocco. marxaladani waa marxaladii boqortooyadu ka gaartay horumar midkii ugu sareeyay dhanka siyaasadda, cadaaladda, ilbaxnimada. waxayna marxaladani boqortooyadu dhiirigelisay culumta kala duwan sida barashada Quraanka iyo axaadiista. sidoo kale waxay xoojisay fanka iyo suugaanta, waxay horumarisay dhismayaasha buundooyinka, waxayna hirgelisay qodista ceelasha iyo weliba furidda wadooyinka, waxayna halkii ugu sareeyay gaarsiisay beerashada iyo weliba ganacsiga. taariikhyahanadu waxay marxaladani ka bilaabaan xilligii uu dowladda maamulayay boqor Saliimkii koowaad ilaa laga soo gaaro muraadkii saddexaad 1595 miilaadiga. marxaladda saddexaad ahna marxaladii ay joojisay boqortooyadu koriinsho, kobac iyo weliba hor u socod, waxay noqotay sida weel biyo lagu shubay, deedna barufoobay oo aan dhaqaaq iyo dheefsasho toona lahayn. salaadiintu waxay noqdeen kuwa daciifay, kuna talax tagay ku tacadiga xoolaha masaakiinta iyo weliba la tumashada haweenka. wasiiradu waxay noqdeen kuwa dhagar iyo musuqmaasuq badan. waxaa awoodii dowladda qabsaday ciidamo la oran jiray inkishaariya oo ahaa askar commandos oo kale oo ay dowladdu lahayd, waxaana aasaasay markii ugu horeysay askartani boqor Muraadkii koowaad oo ragga qafaalka lagu soo qabta caruurtooda, caruurta agoonta ah iyo weliba qoysaska danyarta ah caruurtooda ayay dowladdu korsan jirtay. deedna waxa ay geyn jirtay madraso lagu barayo diinta islaamka, waxaana loo barbaari jiray si gaar ah, iyadoona suldaanka uu ahaa aabbaha ruuxiga ah. canug welibana waxaa loo jehin jiray halka uu ku fiican yahay, oo waxaa la bari jiray culumta diiniga iyo weliba midda maadiga ah, halka caruurta qaarna laga dhigi jiray dagaalyahano farta ka xiran. dagaalkan uu yahay waxa kaliya ay ku shaqaystaan, dagaal haddii ay galaanna sooma aysan jeesa jirin, waxayna u kala tartami jireen daadinta dhiigga cadowgooda. kolka ay guulaystaanna boqorku waxa uu siin jiray hanti iyo qaniimooyin fara badan, ilaa kolkii dambe ay iyagu noqdeen kuwo u bareera la tumashada haweenka, cabista khamriga iyo weliba ku tagrifalka awoodda dowladda, ilaa ay gaareen heer ay casilaan oo ay xilka ka qaadaan amaba dilaan boqorada dowladda. dhanka kalena dowladihii Yurub kolkaasi ayay indhaha kala furayeen, una dhaqaaqayeen dhanka iyo horumarka, waxayna galayeen xilligii fufka iyo sarakaca, waxayna u kala tartamayeen horumarinta culumta bulshada iyo weliba midda dhaqaalaha. waxay dhexda u xiranayeen dhulbalaarsiga iyo weliba boobka xoolaha islaamka, laga bilaabo dalka Talyaaniga, Hungary, Faransiiska, Spain, Portugal, Jarmalka, Poland, Britain, Ireland ilaa laga gaaro dalka Mareykanka. waxaa si isdaba joog u dhacay kacdoono lagu doonayay midnimo buuxdo iyo weliba dhulbalaarsi, halka boqortooyadii weyneed ee Cusmaaniyiinta ay ka soo hartay oo kaliya indho iyo magac aanan awood badan lahayn. waxayna noqotay boqortooyo kolkii dambe loo bixiyay The Sick Man of Europe, rajulun Oroba al-Mariid, ninkii Yurub ee jiranaa, oo waxay qaadatay halheys la oran jiray boqortooyooyinkii hore ee burburay, sida boqortooyadii Roomaanka, midii Giriiga iyo weliba boqortooyadii Shiinaha. waxaa macquul ah in la isweydiiyo haddii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ay daciiftay awoodeeda 1596 miilaadiga, haddaba maxay tahay sababta ay u sii jirtay ilaa wax ka badan 320 sano, oo maxaynan mar hore u burburin? si taariikhyahanadu waxay kaga jawaabeen su'aashani maangalka ah in wadamada reer galbeedka badankood ka dilaacay kacdoono xurnimo doon ah, sida kacdoonkii Ingiriiska, kacdoonkii Faransiiska iyo weliba kacdoonkii Talyaaniga, oo ma jirin wadan 100% ay awoodiisu dhammaystirneed oo isku biimeyn kara dowlad magaceedu ka weyn yahay shaqadeeda. sidoo kale hadduu isku dayimaago hal wadan oo reer galbeed ah inuu qabsado dhul ka mid ah dhulkii boqortooyada, wadamada kale waxay heshiis la galayeen boqortooyada si uuna wadankaasi ugu xoogaysan, oo ayaga laftooda ayaa lugaha ishayay, oo waxay aaminsanaayeen cadowgaaga cadowgiisa waa saaxiibka. ugu dambeyntiina quwadihii reer galbeedku waxay ogaadeen in ilaalinta jiritaanka dowladdan daciiftay ay ka qarash yartahay ugana faa'iido badan tahay inay afgambi ku ridaan dowlad iyadaba saaran sariirtii sakaraadka, sugaysana cid ku dhawaaqda geerideeda. qaybta xigta ee muuqaalkeena ayaan ku eegi doonaa suntii lagu daro dowladdii sakaraadka ahayd, misena sababtay dhimashadeeda, iyo heshiiskii lagu qaybsaday dhaxalkii boqortooyadani.